taariikhda Soomaalida ee iminka reer Puntland isqeyraysiinayaan anaga nagu sheegayaan Soomaali diid iyaga Soomaali diid hadda iminka la joogo inagu waxaanu nahay Jamhuuriyadda Somaliland Soomaaliya waxaanu u sheegnay Soomaaliba iyo adduunka waxaanu u sheegnay tii 60kii naga baaqatay baan la soo noqonay tolow sidaa nagu ogaad iyagu sidii gorayada lugna xamar bay kula jiraan lugna dawladooday kula jiraan dawladda federaalka ay cashuur kama qaado oo ma xukunto oo shaqo kuma laha oo heshiisyada galaan waxba kama ogeysiiyaan haddana inagu waa ka hagardaamalaan iyagu kama hagardaamalaan oo waxa walaaqaya dawladda federaalka walaaqayana waa iyaga markay sidaa tahay haddana waxay leeyihiin inagu Soomaali baanu doonaynaa Somaliland halkan iyo rabshadahan la ascaarada iyo dagaaladan ka socda nimanka qasay ay ka degi weydina waa iyaga taxamar ka dhisan ay ka degi weydina waa iyaga marka waxay la tahay halka iminka maraysana dee Soomaali oo dhabo og tahay oo shirarkii maalintii dhaweyto ay galayeen maamul goboleedyada Soomaaliya Puntland kama qayb gelin way la dagaalamaysaa tii hore waa la dagaalamaysaa kii ka sii horeeyay waa la dagaalamaysaa marka waxaan u doonayaa taariikhda u saxo ugu yiraahdo haddii maanta ay la ascaanood wanaag ka doonayaan ciidan qabaaylaysan oo abaabulan oo muusannawa may soo direen gudina uga dhigeen ninka la yiraahdo Axmed Cabdiweli Gaas oo abaabulka inta laakiin si ka fudud bay u gali lahaayeen oo nabad bay raadin lahaayeen dadka kala dhex gali lahaayeen ummadda qaxday iyo dhibaatada dhacday bay wax ka qaban lahaayeen laakiin colaad iyo wareer iyo dab ay ku sii shaqeen marka waxaan leeyahay horta anagu idinka Soomaali diidii anagu waxaan wax kale ma oran waa ma 60kii dawladda idinka ma duulo noqonay cid aan dib ugu haynaana ma jirto cid colaad aan u haynaana ma jirto laakiin idinka baarba bixi maayo meeshaydaan ku jirin waxaan oran lahaa tan Somaliland faraha kala baxa Soomaalida kalena fadqalalada ka daayay